بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدوميها قلاها شعبكم مدنة شيخ آدم محمد نور آدياد أيوم محسنية سلام كقذال يمات علين ولا ريال عو كلا شرف وينه كم هاد علين يا حلبان هذا شرفت له كسو قيب قلاي عشادو عشر رين يا فرحت يدبال دق معهن وسيدا وشيء قدوميها حالة عد أدق أو كلول أيام دلكين يدكين ما تسوي وجهي Soomaaliyana iyo Soomaaliduna in badan xaalada cad adag way soo mareen kuwa kale oo ka sii cad adagna Ilaaha uga turay oo aanan soo qaabilseenin laakiin kuwa aan anagu ama gacmahayna soo geysan ama aan sabab u ahayn ayaan soo marnay alxamdulillah in badan oo dhibaatooyinkaas kamid ah waa ka soo samata baxnay waa ka nabadnimiday xaaladda guud ahaan dalka maanta meesha ay marayso aad iyo aad ay u wanaagsan tahay horumarka ummadda Soomaaliyeed ay ku hiigsanayso wax badan oo kamid ah tallaabooyinka loo qaada dhinacaas aad iyo aad ayay u dheereeyaan qurux badan hase yeeshee sida gudoomiyuhu sheegay habeenku wuxuu ugu mugdi badan yahay la yiraahdo marka waagu uu soo dhawaado waxyaabaha aan arkayna maanta waxa ay ku saabsan yihiin marka inaas xigmadahaas ayay dugsan yihiin dalka muddo 2 sano ku dhawaad ah dagaal ayuu ku jiraa cadawga ummadda Soomaaliyeed oo nimanka khawaarijta ah ayuu dagaal kula jiraa dalkeena Soomaaliya iyo dadkiisa guulo la taaban karo ayaan ayaa laga soo hooyay maanta dhul dhan oo shalay aan xor ahayn ayaa xor ah nabad lagu maraa dhulkaas wuxuu ku xoroobay oo dadka Soomaaliyeed ku nool dhulkaas maanta ay xor ku yihiin kuwa kalena ay ku shilsanayaan waa dhiigga geesiyaasha wiilasha geesiyaasha ah ee Soomaaliyeed oo ay ugu dambeeyeen kuwii uu kamid ahaa sarkaalkeenii Suulnuuge oo ah geesi Soomaaliyeed oo la wada ciidankana laga dhex yaqaan dadka Soomaaliyeedna ay yaqaanaan الله ونحرسه جندي فردوسنا الله جيان لنا. أنت كده ولا ليال ظروفها أن صامرني. أنت بدن وحيابا أن كسو كبنين أي هاي. وأن صامرني عذره يشوبان بيوت يضاعون يدبات يجرتهم. وأن صامرني معلول يباهي يأبار إجران. وأن صامرني على هذا إجران وقفل بابين كعاوة. nabad waaga kuugu bari karaa oo islaha waa aan soo marnay hadda u dambeeyay fatahaado iyo biyo iyo daadad aan ka soo gudub aan soo marnay maalin walba meeran soo mareynay waa aan soo marnay magaalada Muqdisho laamiyadeeda dhufaysa ka dhex qodan yihiin oo cadawga aan magaalada Muqdisho iyo xaafadaha iyo madaxtooyada agaarkeeda aan kula dirireyno dhammaan caawana Muqdisho waxaan kula dirireynaa meel 100 kiiloomitir u jirto ayaan shabaabkii aan kula dirireynaa intaana wiil Soomaaliyeed iyo gabar Soomaaliyeed baa geeyay oo inta riixay dhulka marka qiimahaas leh dalka iyo dawladnimada iyo sharafta iyo karaamada ummadeed ee wiilashaas geesiyaasha ay naftooda u hureen si ay sharafta iyo ciziga ummadda ay leedahay ay kor u ahaato oo dadka Soomaaliyeed ayaga oo madaxooda u kor yahay ay ummadaha caalamka wax la wadaagaan dadkaas qiimaha badan leh oo sarkaalka hadda aan magac dhabeynay oo kamid yahay ayaa ka soo baxay iyo kuwa waligood ka sii horeeyay ee dhiigooda ku bixiyay caawa maanta waxay taagan tahay dhulkii noocaas ahay in cadow uu yiraahdo intaanaan qaadanaya mid Soomaali ah oo ama uun damac adduunyaha u geeyo ama garaad yareha u geyseen uu yiraahdo intaanaan bixinayna dhaqan caalamku yaqaan maaha dhaqan ummadda Soomaaliyeed ay ayadoo intaan ka liidata ama ka qadiimsan ama ka horumar yar ama ka faham yar ay soo ogolaateen maana way soo diiday tallaabada iyo hadalka ka soo yeeray
waxaa loogu yeeray isfahamkii 1 January magaalada Addis Ababa lagu saxiixa la yiri dawladda Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed waxay u arkaan duulimaad lagu soo duulay dalka Soomaaliya la yiraahdo kama yara yaan magacyo loo yeelyeelin yaan micna loo yeelyeelin dalka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya lagu soo duulay jiritaanka iyo qabka qofka Soomaaliga ah meel kasta oo caalamka kaga nool yahay ayaa lagu soo duulay ma aha dadka Soomaaliyeed ee deegaanka la tilmaamay ku nool ama waqooyiga Soomaaliya ku nool ama koonfurta Soomaaliya ku nool ma aha qofka Soomaaliga ah ee Europe iyo America Minnesota ku nool Stockholm ku nool maxaan ku raadayay Paris ku nool Imaara Dubai ku nool Istanbul ku nool Nairobi ku nool Jigjiga ku nool maxaan ku raadayay meel walba oo shakhsi Soomaali ku nool yahay jooga ayaa lagu soo duulay waana ka jawaabeen maanta meesha ay joogto dadka Soomaalida meel kasta ay joogaan waa ka jawaabeen haddii uu aadan yabaal joogay iyo haddii uu burco joogay iyo haddii uu boorama joogay iyo haddii meel kale oo dhulka Soomaaliya kamid ah ama dadka Soomaalidu meelaha ay ku nool yihiin kamid ah uu joogay uu ka jawaabay codkooda iyo muuqaalkooda ayagoon qarsoonayn ayay banaanka la yimaadeen sawaxanka iyo qaylada boorama ka baxaysa ee Hargeysa ka baxaysa ee Lughaya ka baxaysaa waxay ka turjumaysaa cunsurka Soomaaliga shakhsiga Soomaaliga meel kasta ku nool yahay caawa dareenkiisa iyo meeshuu joogay ka turjumaysaa waxaan amaanayaa oo bogaadinayaa wiilasha iyo gabdhaha dhalinyarada ah ee qaarkood xabadaha lagu ridayo ee qaarkood la kala eriyayo ee qaarkood xirxiran caawa halka aan taaganahay ee fadhina aan ka hadlayna qaarkood ay xiran yihiin xurriyadda laga qaaday waxa ay u taagnaayeen oo intaas ay u muteysteen waa dhulka Soomaaliya mitir kamida in aanan muxuu ahay aanu bixin waa ammaanayihiin waa ku ammaanayna sharaf iyo karaamo iyo cizi ayaynu ku noolaanayaan biri siyaasad ma aha maamul ma aha qabiilaysi iyo reer hebel ma aha gabdhaha waqooyiga Soomaaliya jooga khaasatan magaalada Hargeysa ka hadlaya ee lahaa Xasan Sheekh bixi ma karo dhulka Muusana bixi ma karo mid kale oo biri maadana bixi ma karo waa runtood 100% gabadhaasi waa runteed bixi ma karo anigu Muuse bixina bixi ma karo mid kale oo biri iman doonana bixi ma karo لأن شلة أنجو أن جوجن أي أدول كان لصق دنتور لسود دافعي أول الديدي إن لبحيه قرني كويلا ترى نجم السرود دولة إثيوبيا يدت كرر إثيوبيا دمان وحلا هكوكت سومنا ما دعيسو ما دعيسو دول Soomaaliyeed oo xor ah maanta inuu xornimadiisa waayo ma dacayso ciidan leenahay biyahan leenahay duulimaad kuma ahin dal kale iyo dad kale ciidooda iyo dhulkooda kama gorgortamayno kama macaamilayno kama heshiin karno taa ka dhulka Soomaaliya kamid ah waxaan leeyahay marka ha ku kadsoomina reer Itoobiya madax iyo shacab iyo cid walba haddaad tihiin ha ku kadsoomina kuwa oo Itoobiya inay ku kaalmeynayaan u qabo oo maxaan ku yiraahdaa ama gabanayo le Soomaaliya laba biri waaye waa iska aamusi doontaa dadka Soomaalidu waa iska ilowshiye dhow yihiin way iska war waxaan ilowna dhulka mid maaha dhulka kamid maaha waxaan ilowno wax badanaan ilowna dulqaadaan leenahay samiraan qabnaa
محبة جعلك ومضاها أدونك ودما جعلنا هاي لكن وحين لا يالوا إلونا وحبدنا نريالي dadka Soomaaliyeed dulqaad ayay leeyihiin dulqaadku sadayuusnimo ma aha dhulka qaaraan qaadanayaa ee adiguna raalli ka noqo waa dayuusnimo taariikhna uma lihin dayuusnimo iyo dulinimo iyo doqonnimo taariikh uma lihin Soomaali haddaan nahay meel kastoo aan joogno dalka Ethiopia derisaan nahay ismaanaan dooran waa laga yaabaa haddii la weydiin lahayd Soomaalidu deris midla noqonaysa haddii la dhihi lahayd maya inay dhihi lahaayeen annaga waana laga yaabaa Ethiopia deris midla noqonay haddiina maya inaan dhihi lahayd laakiin maanta ma joogo derisaan nahay deriskana wax badanaa ka dhexeey dadka reer xamarka maxay ku maamaahi jireen balaayadaada qofkii rabo yaa boodkaaga oo qoryeystaa kuwalana maxay dhijaan balaayadaada qofkii rabo digaaggaaga iga cisho ku dhaca qof digaag inta mooreeyo meel ku hayn karo ku cisho kara miyaa jira balaayadeenna qofkii rabo dhulkiinaan rabnaa u soo dhahaa balaayadeenna qofkii rabo dhulkiinaan rabnaa u soo dhahaa dhulka nagaha laga leexdo war caalamkoow ma sii kartiin ma waxay kartiin kuwa laga sheegayay ciidan badan Ethiopia u dhisayna kuwa laga sheegayay waa maal gelinaynaa annaga dhisayna magaciisi kuwa aamusan oo isla Soomaalidu bireeshab intaba waxaan leenahay ku kadsoomina Ethiopia waxaan leenahay shacab iyo dawladba derisaan nahay deris wanaagan diyaar la nahay واديدني dalkana inkii duusiye rabo waadiidnay taas waa xigmad weyn aad weyn waxaan rabaa marka inaan bogaadiyo hambaliyeeyo dadka Soomaaliyeed sida aan sheegay meel kasta jooga Soomaaliya gudaheeda waqooyi iyo koonfur iyo bartamo iyo bari meel walba jooga iyo kuwa dalka dibadiisa jira intaba ee Soomaalida ah ee Soomaalinimada u dhashay waxaan leeyahay dhamaantiin waa idin bogaadinayaa dadaalka aad sameyseen ee shucuurtiina sidaad u muujiseen waa ku mahadsantihiin wax weyn aadna qabateen difaac weyn oo dalka ayaad gasheen kuwa shaqadii waa la idin hayaa isle ee aamusan ama la idin soo gaaray islahow waa la idin soo gaaray shaqadana la idin ma hayee fadhiga ka kaca dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasto ay joogtana waa ugu baaqaya inay u diyaar garoobaan difaaca dalka waa difaacayna dalkeena waa miinis kasto aan ku difaaci karnaa ku difaacayna cid kasto oo aan la kaashan karnaa la kaashanaynaa inaan difaacno dalkeena yaana nalagu qasbin albaaba aanan hore u garaaci jirin inaan garaacno yaana lagu qasbin nabadda iyo wanaaga iyo wada jirka iyo diris wanaaga iyo wada noolaanshaha iyo wada horumarka inaan wada horumarno annaga iyo dawladaha deriska nala ahba dhammaan yaan rabnaa wax kasta oo dana ah oo isku xiran oo ku wada horumari karno ayaan diyaar u nahay inaan qaybteena ka qaadano laakiin yaana la riixin yaana lagu riixin meel aanan rabin inaan aadno yaana lagu riixin albaabo inaan garaacno aanan rabin yaana lagu riixin inaan garaacno qiimi kasta iyo qadarin kasta iyo raadin kasta ayaan ku bixinaynaa dalkeena si aan u difaacno una ilaalino waxaan u mahad celinayaa dhammaan dadka Soomaaliyeed oo aan sheegay waxaan si gaar ugu mahad celinayaa walaalaha xildhibaanada ah ee dalka baarlamaanka dalka Kenya ka tirsan
soomaalida ah ee ayaga oo xuduudda banaankeeda jira muujiyay talada fiican iyo caqli celinta fiicanna bixiyay iyo tusaaleynta caqli galka ah ee adduunyada casriga ah ee qarniga 21aad sida loo dhaqmo ay tahay muujiyay u tilmaamay walaalaheena kale ayagana waa u mahad celinaa si gaar ah ugu mahad celinaya waxaan sidoo kale bogaadintayda ku adkaynayaa dadka walaalaha sidoo kale mas'uuliyiinta ayagoo mas'uuliyad haya oo heybad leh oo magac leh mas'uuliyaddii xagga iska dhigay ee yiri anigu taan u hayay ummadda ama ugu dhaartay maaha ama meel dalkii sida lagu yeelay mas'uul ka sii noqon maayo kuwa yirine waa bogaadinaynaa waan u hambalyeynaa inta kale ee meel kastoo ay joogaan waxaan leenahay war meeshii Soomaaliya iyo Soomaali magaceeda iyo jiritaankeeda iyo karaamadeeda lagu waxyeeleynayo xeradaas ha ka dhex muuqanin sharaf iyo karaamo iyo mas'uuliyad kuma aha inaad xeradaas ka baxdo oo meel nadiif ah ka istaagto ayaa karaamadaada iyo sharaftaada ku jirta waxaan rabaa inaan ugu baaqo maamulka Somaliland waxaan rabaa inaan iraado dadka Soomaaliyeed waxa ay diidan yihiin idinkama qarsoona waad garanaysaan ka daaya dadka inaad ku qasabtaan in ay ka tanaasulaan ciziga iyo karaamada ay leeyihiin inay ka tanaasulaan ha ku qasbina dadka caro iyo calooliyow unbaa kasii dhalanaya dadku cabsan maayaan guryahana ku noqon maayaan laana guriga wixii uu ku jiifay oo heybadii iyo sharaftii aydaad ka taabatay ha ka taabanin waxa ka soo haro dhan waxay leeyihiin si looga maarmo dadka karaamadoodii la taabtay yaan lagu sii fogaanin ka laga waantoobo ha laga noqdo Soomaali waa walaalo ama isku maamul iyo astaan iyo hal calam ha hoos joogto ama dhowr calan ha kala joogto Soomaali waa Soomaali Soomaalidayna ku midaysan tahay dhulka Soomaaliya liidaane Soomaalida iskala sideeba Soomaaliya yaa leh Soomaaliya leh Soomaalida la midda dalka figure 7 kan dhaxdiisa midda ku nool bas ma ah waa midaas aan sheegayn oo North Eastern ku nool oo kilka shanaad ku nool oo Djibouti ku nool oo maxaan ku yiraahdaa Minnesota ku nool oo London ku nool oo meel kasta maxaan ku yiraahdaa caalam kamida ku nool waaye Soomaalida iskale Soomaaliya marka sidaas inaan u wada ognahay waaye waxa muhiimka inta kadib maalin wadna waa sheegay hadan waxaan rabaa inaan ku celiyo ninkii cila dhaamiyay ee la isku soo baxay loo yimid war maxaa dhacay masuul geeli waa la dhacay geeli waa la qaaday ninkii ugu soo horeeyay haye oo geel la qaaday yaa lahay markaasuu yiri anaa lahay waa fiiri markaasuu yiri geelaaga waxa qaaday nin guntigaaga arkay marada saad u guntan tahay maradii oo kala raaracdo oo si u guntay oo dhinac uga dhagan oo gacanta ku hayo arkay markaasuu yiri sidaad u guntan tahay nin arkay ayaa geelaadii qaaday dhulka Soomaaliya lama sheega jirin Soomaaliya sidaan u naalo nin arkay ayaa dhulka naga haweysta oo raba inuu qaato duubka aan xajisan aan duuban si fiican aan u duuban si fiican haddaan u duubanno lama soo qaadasho iska daaya lama soo haweysanaya xataa dhulka naga ama odayaasheenii hore maxay yiraahdeen SYSH berigii xorriyadda iyo xamaasadda dhulka loo gadan ma dhulkoo dhan oo tagay baa ninna dhagax u tuuray caawa meeshii taagantaa dhulku waa tagaya haddana dhagax loo tuuray dhagaxaad u tuuraysid Facebook iyo Twitterka iyo maxaan ku yiraahdaa TikTok waaye dhagaxaaga la maqdaan dhalinyarada Soomaaliyeed oo kale waxaan leeyahay kuwana waa u diyaarsan yihiin waa ciidamada qalabka sida oo lagu daray ciidamada difaaca bulshada macawisleyda loo yaqaan meel kasta ay joogaan
وكو ديارسن وعاوة لقى يابا أيضا رب دأيو إن أي جيت هسي كجران عدو قاضيان إلالينيان inteen kuwa banaanka taagan oo boorarka habeen walba shidayo oo banaanka la taagan oo la garaacayo la eriyayo qaarkood la xirxiray kuwa dhiirada idaacadaha inta soo istaagay waxa dhabta meesha jira inta sheega ayagana la xiray waxa soo dhan marka la isku soo daro dadkeena iyo dhalinyaradeena nisba yar yihiin dhalinyarada inta soo hartee magagalahow faraha badano waxaan idin leeyahay maantii la kala hariyo guryaha la joogay maaha loo diyaar garoobo difaaca dalka u soo istaaga ka soo baxa guryaha cadaysta mowqifkiina waxa aad qalbiga ka wada jeceshiin qalbiga ka rabtaan oo ogahay ku qowla banaanka la imaada meel kasto aad joogtaan haddii loo baahdana inaad naftiina u hurtaan u diyaar garooba Soomaaliya maalintay dadka dhalinyaradeeda u baahneed oo loo hiili lahay Soomaaliya ayay joogtaa maanta ilaahay idinkiis waxaan leenahay waa intaas sharwadayaal maahin dagaal oogayaal maahin xuma ka shaqays maahin laakiin dayuusin maahin umad jirto taariikh lahaana umad jirto oo taariikh lahaanahay waxaan rabaa dadkaas dowladda Itoobiya shacabka Itoobiya shacab fiican waay dood dacwada uma qabnay dowladda Itoobiya waxaan leenahay dadka Soomaaliyeed dagaalka xaqiisa u riixina loogama libkeeno weligeedna loogama libkeeni dagaal iyo colaad xaggeed yaan loo riixin dadka Soomaaliyeed ee nabadda iyo wanaaga iyo diris wanaaga ay rabaan ay diyaar ku yihiin hal gula macaamilo saasaan leenahay mar kale ummadda Soomaaliyeed meel kasto ay joogto waa bogaadinayaa waana dhiirigelinayaa waana maxaa u hambaliyaynayaa kuwoodii soo baxay inta dhimanna ha soo baxdaan leenahay dalka annagaa iska leh dadkiisi maanta joogo annaga waa naloo soo ilaaliyay shalay annagoon joogine annagana waxaan u ilaalinaynaa kuwa iman doona berri waa u ilaalinaynaa maantaan u dhimanaynaa siday ugu intifaacaan berri haddii alla yidhaahdo xildhibaanada sharafta lena waxaan leeyahay maanta waxaan u baahannahay ujeeddo midaysan inaan leenahay ujeeddo midaysan inaan leenahay u baahannahay hay-adaha dowladda dhexdooda inaan ujeeddo midaysan ku leenahay shacabka iyo dariiqana inaan ujeeddo midaysan ku leenahay wax kastoo aan isu qabno dib aan u dhigano unity of purpose ujeeddo midaysana maanta aan leenahay ujeeddo midaysan aan leenahay waana midaas midda maantana tamata bixinaysa midda maanta karaamada ayna ilaalinayso inaan kala dadka qaarkiisna waa dadkii sharafta lahayna la yiraahdo kuwa qaarkood waa ku duligana la yiraahdo suurtagal ma Soomaali ummad qowmiyad sharaf leh oo mudanay wada naqanay ama qowmiyad dulaysanay naqanay laakiin bara sharaf leh barna sharaf ma laha ma dhacayso horena uma soo dhicin waxaan anfacay inaan sharaf wada leenahay waaye waana wada lahaan jirnay waana wada leenahay caawa aan joognay sharafta nagama dhicin waa wada leenahay aan ilaashano aad iyo aad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi